haweenaydan waxay khudaar ka iibinaysay tuulada muddo 10 sano ah, laakiin dadka tuulada marnaba ma ogaan inay lahayd 3 dumar oo wiilasheeda guursaday kuwaas oo aad u awood badan. ilaa maalintii ay tuulada yimaadeen gaadiid raaxo ah oo tiro badan, markaas ayay dadka tuulada ogaadeen aqoonsigeeda dhabta ah. Gabadha wiilka orodka u dhaxday waxay ahayd dhaxal sugaha qoyska ugu taajirsan dalka. Gabadha labaad ee wiilka u dhaxday waxay ahayd atariisho caan ah oo leh taageerayaal gaaraya 10 milyan. Gabadha saddexaad ee wiilka u dhaxday waxay ahayd madaxa akademiyadda fanka dagaalka ee ugu weyn adduunka. Si kastaba ha ahaatee, haweenaydu way diiday inay la laabato si ay nolol hodan ah u noolaato. waxay kaliya doonaysay inay kusii nagaato tuulada iyadoo khudaar iibinaysa. sababta ay sidaas u samaynaysay waxay ahayd inay sugaysay ninkeeda oo shaqo u baxay muddo 30 sano ka hor si aysan ninkeeda uga walwalin qoyska. Xitaa uma sheegin inay uur lahayd, laakiin wax ay marnaba filaynaya ahayn. ninkeeda uu baabo muddo 30 sano ah iyadoo aan hal war ah laga helin. tani waxay keentay in dadka tuulada oo dhan ay rumaystaan in ninkeeda uu dhintay si tartiib ah. 30 sano ayaa dhaafay. haweenaydu waxay ku barbaartay 3 wiil iyadoo khudaar iibinaysa. wiilashu aad bay u dadaaleen, dhammaantoodna way ku kalsoonaayeen hooyadood, laakiin dadka tuulada ma rumaysnayn in wiilasheedu ay noqdeen khubaro heer sare ah oo ku guulaystay xirfadahooda. mashruucyadooda cilmi baariseed xitaa waxay soo jiiteen indhaha dalka oo dhan. muddo 10 sano ka hor waxaa loo wareejiyey saldhig qarsoon si ay cilmi baaris u sameeyaan. ka hor intaysan bixin, waxay si gaar ah ugu dardaarmeen xaasaskooda inay si wanaagsan u daryeelaan hooyadood. laakiin wax ayaan ogeynaya ahayn hooyadood weligeedna ka walwalsan ninkeeda. ay si qarsoodi ah ugu laabatay gurigeedii hore si ay u sugto. maalintaas haweenaydu waxay dhamaysay iibinta khudaarta, markaas ayay heshay wac ka yimid madaxii tuulada. waxaa loo sheegay ninkeeda uu soo laabtay. qalbigeedu farxad ayuu la booday, iyadoo iska indhatirtay isku daygii dumarka wiilasheeda ay ku joojinayeen. waxay raacday mooto koronto gurigeeda u carartay, laakiin markii ay albaabka furtay ka hor inta aysan farxadeeda la wadaagin ninkeeda, haweeney kale ayaa dhinac u tuurtay. haweeneydaasi waxay ahayd Laura, naagtii ninkeeda la joogtay. markaas ayay haweeneydu fahantay in ninkeeda uu qiyaamay 30 sano ka hor, iyo in sababta uu u soo laabtay ay ahayd oo keliya inuu furo. markii ay maqashay way naxday, iyadoo labadoodaba si aamusan u eegaysa. weligeed ma filaynin kadib markii ay waalidkiisa daryeeshay, xanuunka u adkaysatay oo sugaysay 30 sano in wax walba ay ku dhammaanayaan hal eray oo keliya: furiin. Laura waxay u eegaysay si quudsasho leh. waxay si cad u sheegtay inay ninka la joogtay intii uu ganacsiga ku jiray, xitaa ay u dhashay ilmo hadda oo uu noqday madaxa shirkad weyn. iyadu ayay tiri iyada ayaa xaq u leh inay noqoto xaaskiisa rasmiga ah. xitaa ninka laftiisu uu ku jeesay haweeneyda, wuxuuna sheegay inay tahay keliya haweeney khudaar iibisa, isagana aanay u qalmin. isagoo hadlaya wuxuu soo bixiyey $100,000, wuxuuna yidhi tani waa magdhow ku filan. xitaa haddii ay khudaar iibiso inta nolosheeda ka dhiman, marna ma kasban karto lacag intaas leeg. shuruudiisa keliya waxay ahayd inay saxiixdo waraaqaha furiinka. markii ay maqashay, haweeneydu qosol qadhaadh ayay bixisay. waxay ku tilmaantay nin aan damiir lahayn, waxayna tiri marnaba ma saxiixi doonto. hadalkeeda ayaa si buuxda u cadhoodsiiyey ninka, iyadoo weli wareersan. wuxuu ku amray raggiisa inay qabtaan si khasab ahna u saxiixaan, laakiin haweeneydu si caro leh ayay uga baxsatay. waxayna jeexjeexday waraaqihii iyadoo eegaysa labadooda kibirka leh. waxay qalbigeeda ka dareentay xanuun daran. markaas ayay Laura aragtay sawir miiska yaalayo ay haweeneydu kula jirtay 3deeda wiil. waxay isla markiiba ku eedaysay inay khiyaantay ninkeeda oo ay carruur kale u dhashay. haweeneydu way isku dayday inay sharaxdo, laakiin ninkeedii ayaa dhulka ku tuuray. wuxuu rumaystay inay dhab ahaan khiyaantay, isagoo caro darteed burburiyey sawirkii, isaga oo aan ogaynin carruurta sawirka ku jirayay ahaayeen carruurtiisa. haweeneydu waxay isku dayday inay sawirka qaadato, laakiin Laura si arxan darro ah ayuu cagta ugu tuman. ugu dambayn, haweeneydu waxay ku qasbanaatay inay Laura riixdo. taasi awgeed, ninkeedii ayaa canaantay, kadibna wuxuu amray in guriga laga tuuro. dhanka kale, 3 dumar ee wiilasheeda ayaa si walwal leh u raadinayay, iyagoo ka baqayeen wax u dhaceen. waqtigaas waxay heleen fariin ka timid hooyadood. markay maqleen codkeeda murugada leh, waxay isla markiiba garteen in wax dhacaan, wayna u carareen. way weydiiyeen wixii dhacay, laakiin hooyadu way qarisay runta. waxay tiri keliya sawirka ayaa dhaawacmay, ninkeeda haba yaraatee ma xusin. sidaas darteed, waxay keliya u qaadeen dhakhtar. raggoodana waxay ku amreen inay runta baaraan. markii sawiradii loo soo diray, gabadhii wiilka orodka u dhaxdaya si lama filaan ah u naxday, maxaa yeelay ninka sawirka ku jiray wuxuu ahaa aabbaha ninka ay walaasheed guursanayso. si ay hooyadood uga argutaan, waxay go'aansadeen inay u sameeyaan xaflad soo dhaweyn ah si qof walba u ogaado aqoonsigeeda dhabta ah. laakiin ma ay ogeenin aabbaha ninka la doonayuu ahaa ninka hooyadood. maalintii xafladdu timid, si ay u tijaabiyaan dabeecadda ninka, waxay sidoo kale casuumeen qoyskiisa. markii ninku arkay haweeneyda oo si qurux badan u labisan horta hoteelka, wuxuu isku dayay inuu si caro leh u eryo. Laura xitaa way ka sii dartay. waxay ku jeesjeesay, iyadoo ku tilmaantay haweeney khudaar iibisa oo aan xaq u lahayn inay halkaas joogto. haweeneydu si deganayay labadoodaba u eegtay, doodna ma gelin. markay isku dayday inay gasho hoteelka, labadooduba way hor istaageen. Laura markay ku jeesjeesay ayaa iyadu marka hore gashay hoolka xafladda. gudaha markay galeen, waxay si kibir leh isu soo bandhigeen, iyagoo sheegay inay yihiin qoyska mustaqbalka ee gabadha qoyska ugu taajirsan. markay aragtay xaasidnimada indhaha martida, Laura kibirkeedu wuu kordhay. waqti yar kadib, haweeneydii ayaa iyaduna soo gashay. markii ay soo gashay, qof walba indhihiisu way ku jeesteen xaragadeeda iyo haybadeeda. muuqaalkan ayaa kiciyay masayrka Laura. isla markiiba waxay ku dhawaaqday in haweeneydu tahay xaaskii hore ee ninkeeda oo khudaar iibin jirtay. xitaa waxay ku eedaysay inay khiyaantay oo ay carruur kale u dhashay. martidii ayaa bilaabay inay dhaliilaan haweeneyda. Laura halkaas kuma istaagin. waxay u yeertay shaqaalaha xafladda, iyadoo ku amartay in haweeneyda dibadda loo saaro. intii ay la halgamaysay, sawirkii boorsadeeda ku jiraya dhulka ku dhacay. Laura waxay u adeegsaday inay mar kale ku sumcad disho. haweeneydu way baryootantay. waxay tiri haddii sawirka loo celiyo, way saxiixi doontaa waraaqaha. laakiin Laura waxay ku amartay inay jilba joogsato. xitaa markay jilba joogsatay, Laura ballantii way jebisay. sawirkiina hortooda ayay jeexjeexday. kadibna waxay amartay in dibadda loo saaro. markii ay ku dhaweeyeen inay gacanta saaraan, albaabada hoolka xafladda ayaa mar kale si weyn u furmay.